مرتا ضرور إرجع مرتا ضرور إرجع مرتا مرتا إسيني دينا يوم مرتا لكو إلى ديا ديار إرجع مرتا dari Amerika Imres dadkooda ilaabtiya ilaahay ku diyaar Xasan Ibrahim Cabdinuur Guudow oo loo garan ogyahay Xasan Reed ayaa maanta gilgilay magaalada Libaaxiya geed socodkan oo hamid uu ku doonayo codadka dadweynaha ayaa noqonayo safarkii saddexaad sidoo kale uu cadeynay shacabka inuusan ka harin doorashada Xasan Reed oo ah wiil dhalinyaro oo ku dhashtay kuna barbaaray deegaanka Libaaxiya ayaa ah musharaxa loogu hadal haynta badan sidoo kale ugu dhow inuu guusha qaado doorashadan reer Libaaxiya ayaa wiilkooda ku soo dhaweeyay ciyaaro dhaqameed iyo sacab sidoo kalena sheegay inay dooran doonaan waxaad ogaatid wiilkan aniga Allah ilaahay uma soo yeerin ani soo ma kicinin oo soo ragnimadiisa iyo nasiibkiisa waxa kale oo sheega horta korkaas wiilkan soo baxay nin buu weytaan aan ku dhay oo murule oo meeshaan aas ugu dhicin ma jiri oo gartan ma laakiin cid reer aabahay haddaa intay fadhiisteen wiilka hanoo joogo ee wiil kalan dooran ay dhaheen niyo horta ninka talkiisa u qabsama oo ayrko fadhiisto waa guul ninka la dhiso Allah ilaahay talkaas isku tagana waa guul wixii ka imaad haddaa ninka wada socod wax ilaahay asawiro ceeb oo ka sheega malaha nasiibkiisaas qabaa talka reer aabahay waa kan sawaad garteen ma marka dal hadlana Allah ilaahay ninka hadlo hebelow kaali ma leero meel dheer laga soo fartiimin cid reer aabahay suxunay waarkin wiil yow soo dhawow nasiibka waxa la ilaahay waa taliya ibn aadan waa tubaxa kolka la fadhiisana oo kale ha joogo leeyahay Allah ilaahay xaq ilaahay wax jiraane inaad usuub ka soo noqdo ilaahay qorayaan lama ogo waxaan ku sheegaa si tariibka hor marka soo bixaysa loo dhaga qaadan ogaay hadda tariibkan noqon tariib ku xiga noqon soo garteen ma marka soo dhawow inay raa Cabdinuur soo dhawow waxaan le raad nagleeda waa min yar oo qayb badan aniga ma qaani ilmadeer waanay laakiin waa nin codkiisii iyo asdeeqay aan ka baqday waxaan le Xasan Nuur aanisna waxaan le Xasan aanisna waxaan le Xasan Reed aanisna waxaan leeyahay waxa yar naga dambeeyay aanadaatay dabadooda liira war waa tagnay waa baanay waxa yar naga dambeeyay nala quudiye inta yar naga dambeeyay astaqaana murle sawaytaan aan saddex markay Xasan markay reer Libaaxiya ahaan meelaan afarta location oo Libaaxiya wade mar walba limaan kisaynin oo meel askii ma laqan oo odayaal ay wataan aan ugu soo dhaxtura marka tan ide waxaan laga inka rabaa inaan ka digtoonaan wixii wax qaraba oo wax lagu soo dhaxturaan waa oday damba in aan iska xirna sheekiisa iyo loo baahan marka waa ogtihiin sidii aan u dooranaynin qof aan la aqaanin oo nagu soo dhaxrid aan u dooranaynin hadda ka hor waxa dhacday Libaaxiya intaan ay marqaati ka yihiin gabar 9 bilood joogta ayaa ceelka nooga dhacday 9 bilood gabar joogta oo ceelka nooga dhacday aan dhahni ilman waa tigiri asnoogu dumiko biidadiya waxay maxaan yeeli ku raadayna isku tooganay qof aan la aqaan Nairobi laga soo tuuriyo nagu soo dhax tuuriyo marka hani waxaan sheegaa xisbigan oo ninkan Libaaxiya nagu dhashi oo sirteena ka warqaba dibkeena deefteena ka warqaba walaal banahin adiga u joodin adiga wax fiirnaya lacagaas fiirnaya Xasan Reed hadaas beelaysin inaad duqaal wax u taraayin duq waxa taraamale ilma ciyaalka iskuulka akhrisanayay ee haweenka ninkii kula qaba wax u tari kara hana dhihina duq ma wada maxaas weey maana hadhina duq iiday gurigaas ku gatay guriga iiday isugu waadiidi amboolada iyo waxaad cunaa ilibka ceyrinka waxaad yeelaysiin xasay waxa la rabaa in carrada laga dhabaandhaba meesha aad ku daba dhisan yahayna waa aqaantiin aan u maleynaa
meeshaas ku daba dhisan yahay dowladda aad ku daba dhisan yahay waa soo gelaysaa insha allah ilaahay iidankiisa waxaad yeelaysiin duqmuwat intaad aadiin wiilkaan ciidaha lagu jiiday waxaan u malaynaa ninkan xasan reedhe gadaala aan kiiga soo bilaaba ani haddaan kor waxay qabsatay anoo yar walaalka xanuusiyaa meesha ka tagay waxaan tagay nairobi markaan tagaa waxay ila tahay in aan qarab tagaa koodo sidaa nairobi ku ahay isbitaal gaala ay degan tahay yarkii lagu dhex tuuri kolley waa taqaaniin meelaan wax ka qabtaan garan waay niman odayaal oo nairobi aan u yaray waxaan dhahay nimin dhibkan ayaa haysta ogaada saan ay dhaheen waxaa la yidhi waxaa loo baahan yahay dhiig halkii bointiga waxaa la gadaa 25 milyan maxaan rabaa 25 kun annaga lacagaan raadinay dhaheen odayaal nairobi waxaan hataa kadib meesha waan ka qabanayna ma naqaana horta lacagaan raadinaynaa berri ninkan waa nafax xasaree dhoo socdaas ilaahay ii keenay magaaladaas waxaa yar iiga soo horreeyey moogi waa nin meeshinkii maasana ila imaaday waxaa isla masaan ahaa odayaalkii reer nairobi masaan ay ku dhaheen haa 2 saac isu waasada waxaad ii keenay soomaali iyo gaalba 25 ruux asoo wado gaal iyo soomaalida 2 saac gudood arrintaan lahay odayaalkii reer nairobi aan u yeeray dib looga dhig ilaa beri way dhahan waa ii dhammaatay bal ka warrama ninka asagoo kursi aan ii soo gelin oo kaba dacase wata guusha iida ninka dhali haddaas kursi ii soo gala ka war marka dad reer liixo dhaga qaba haddaad tihiin kuraada maskiinka hala sii dhibkiina ninkii wax ka qaban lahay waa ninkan bustaan ninkii inkulu dhashay oo dadkeena hadda aniga bustaa ku raaxaysanaa maxaa yeelay bal anaga kotiga bilow macnaha kulli dhalinyartana meeshaan ku dhalatay bustaan waaba ku raaxaysanaa dadka saan leh annaga jirkan dhaqaaqaba ku raaxaysanaa asagana lamid waa bustaan aan isku galin markaysa dadkaa ku raaxaysanaad ku jirtaa dhowta ma haddii sanduuqa kuraada ma kala taga kuraadaada inaa u qalmin aad u rida hadhow dhibkii adiga unood ku haysta oo shalayna marka soomaali maxay dhahdi ayaga iga dambeeyo geel degan baan ku xirin ani maxay ila tahay wax bustaan indhahayga geli oo carada indhahayga geli waa anaga riilibxiisaan waan kuraadayn anagaa isku toogan laakiin waa ka shalaynaa hadda 5 sano horo nin baa countiga ku jiri wax ku hiisa lama hay dhalinyaro si aad eelo aragtay kontraktada aad soo qaatay 12 milyan jidka meelaad ka gooyo aragtay oo magaalada laga soo galaa oo aniga aan u bixinay lagtay faaraxada oo meesha u bixin waa taasa marka murlo ani maxay ila tahay kuraad waxa maxaa waa dhalinyaro iyo bilcaamaan marka ani maxaan codsanaa hadhow bedelka aan shalay leen kuraada ninka u qalmo anaga wax noo taarana reer wadanigan aan doorano tiimkan ODM aan la soo dhisay oo madaxdiisa qaras xasan nuur adwey muumadaad ku jiro saweytaan ku jiro ilaa mushimiwa waxaan kulli aan la soo dhisay xasan reed oo ka taagan xisbiga UPIA sidoo kale la safan safka uu hogaaminayo musharaxa gaabana xasan nuur xasan Moses iyo mudane qaras ayaa odayaashiisa ka codsaday shacabka in ay soo dhisaan mudanaha iyo xisbigiisa haddaadna siyaasadda ka joog wuxuu ku leeyahay aniga maya anigu laga xalinaya wuxuu xalinana dhammaan maayin ninka ayada waa gaay lagu dhuftay xariif dantiisuu garanaa shilimaadkiisu jab ku shubnaa hadhowna waa kaa dhaqaajinaa kaas camal ani waxaan rabaa hadda soonga mbele muddo kidogo inada soonga kando waxaa kuu soo haray ragga dhalinyarada oo hadda soo kacay isku aqli maaha isku fikrad maaha hadalkooda ka faham socodkooda ka faham aragtida dadka ay kala arkayeen isha meesha haysa qofka inuu leeyahay hebel dhalay cunugan odiga hebel ay walaalayeen uu egyahay waa inuu dhigi kara waxaan u arkaa marka xabadda kuraaga oo adiga leedahay maalinka taariikh 9 ay dhacaysa waa kurida hadeen shalala maalasina shalala ila dhahde shalala selasina okay waxaan ku soo afjarayaa annaga waxaan dhisaynaa ODM markaan dhaha waxaad leedihiin waa ODM ilaa isku xisbi aan ahay ODM xasan reed
حسن وابي حسن وابي ويتان وابي موسى وابي قرص وابي إلهي غير وعرفنا حسن ريد وحسكوتا بدسية هاي معايا معيدين ويتان حسكوتا بدسية هاي وسوية هاي موسى سوية هاي وسمامت كل حاجة وسويتان كل حاجة وقبلها كل حاجة كنت بدسية ما مغشان وعرفنا انت إذا إلا صادسة وسونا إلا صادسة ما قالتين كعدل تصل وسلامتي بقول تمد أفرتين سلام ومجد أقله إيشي ورقي سقالك دتك سقالك أسكوباي مركاي جوارد مراين الله كده جاي دتك نحتنا هاي ساير كوي مريسا مركو حال ولا ليارو حسبي أو إذا ما دم لوجو جرتا حسبي كاسي عندسنا دت بدن أو ولا الله كتير عندسنا حسبي كان كلامه وحاوه دت ولا الله كتير مركين حوجا يقول له يرجعون ولا في عين أنا وحباب عن كوشيكين حسبي أو دي أمي عندسنا xasan reed oo khudbad dhinac walba taabanaysa bulshada u soo bandhigay ayaa hoosta ka xariiqay in uu dadkiisa la qaybsan doono xaalad walba wuxuuna ballan qaaday inuu waajibkiisa si wanaagsan u gudan doono waa haddii reer Libixiya uu taageero ka helo taabal sidii aan isku ogeyn sama baasha sidii hadda walaalkii al carabi meesha isku sheegaysaa waa shololololo sama ya ayaka waxaan wadanaa eri iyo orgi iyo soomadiin anagana eelaan wata eela baasha meesha ku shooraysan eela waa eri orgi iyo eelaya orod badan orgi iyo eelaya orod badan yaa orod badan orgiga iyo eelada yaa orod badan eelada sama orod badna tee isku soo gaaraynaa ya tee isku soo gaaraynaa xisbigaan buu ku kala tagnee qolka kuraha lagu ridaa iyo kuraha miyaan ku kala tegi waynaynaa soo saas maaha nolola nafaan rabnaa inaan ku badbaadina dee ilaahayna naf ilaahayaa badbaaday laakiin istaalkaan aan rabnaa inaan xooggeena saarno jidkaan oo mataqaanaa oo hoggi weynaaye oo hadda markaan soo marayn jug markaad jaq aad leeda haddana aan rabnaa ilaahi subxaana wa tacaala haddaad ilaahay noo garsii inaa idinkoo dareemayna aad kor martiin tanna ballanta hore iyo ballantaan waa kala duwan tahay ballantii nin meeshaan u dhashay aas qaada iyo ballantii nin qol inaad dhistay guri inaad dhistay raba aad qaada waa kala tahay reebayo soo maaha ninkaas waaba idinka tagae aniga intaan kusoo noqonaa soo meeshayda maaha soo dhulkayga maaha intaan uga tagaa marka yaa saasaad ogaanaysiin kuraa waa isiisaan soo maaha soo ima qaadin waa lay qaaday soo maaha allah idan barakeeye